السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan tacsi tiraanya lagu dirayaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Sheekh Axmed Cabdinaasir oo xalay ku geeriyooday magaalada Laascaanood saakan lagu aasay magaalada Laascaanood oo aaskiisa saaka ka dhacay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. naf kasta way dhimanaysaa, nafnateeda dhaafi mayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weydiinayaa walaalkiin oo ahaa mu'adinka masjid huda in ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay godku nuuriyo, inuu ilaahay godku waasiciyo, inuu dhammaan muslimiinta oo dhanna in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu si mariibaan ka siiyo booskiisina ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay inoo geliyo camal khayr qaba. dhammaan wuxuu ka geeriyooday ummadda islaamka oo dhan buu ka geeriyooday. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan halkan tacsi uga dirayaa anigoo ah isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Sool ee dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka Sool. waxaan si gaar ah tacsi ugu dirayaa culimada gobolka Sool oo ka tirsanaa qaariga Sheekh Axmed Cabdinaasir. waxaan kaloo si gaar ah ugu dirayaa tacsi bahda Masjidul Huda ama dadkii uu tujin jiray. waxaan kaloo tacsi gaar ah u dirayaa familigiisa ee reer Yaasin Xaroor, gaar ahaan awowgay Yaasin Xaroor iyo adeerkay Cabdinaasir Yaasin Xaroor. waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan haynaga siiyo, dhammaanteenba wuu inaga dhintay, iyo hooyadiiba waxaan leenahay dhammaanteenba wuu inaga dhintay. wuxuu ahaa Axmed Cabdinaasir nin dabeecad wanaagsan, wuxuu ahaa nin dulqaad badan leh, nin bulshada dhexdeeda sumcad ku leh, wuxuu ahaa sheekh iyo qaari yaqaana qiraa'aadka dhammaantiis iyo qur-aanka culuumtiisa. wuxuu ahaa macallin ka mida barayaasha qur-aanka ee gobolka Sool ee kuwa kaalmaha koowaad kaga jira. sidoo kale wuxuu ahaa macallin iskool oo islaamiga dhiga. waxaan leenahay dhammaan dadkii uu ka geeriyooday gaar ahaan dalladii waxbarashada ee uu ka tirsanaa ee Ilays dugsiga sare ee Ilays si gaaraan iyagana ugu sii tacsiyeenaya. waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto, qabrigiisana ha u waasiciyo. dadka ahlul qur'aankaayi waxaa loo baahan yahay in la weyneeyo. ahlullaahi wa khaasatuhu weeye, waa dadkii ilaahay weeye. wuxuu ahaa qaari Soomaaliyeed buu ahaa. waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto. Sheekh Jaamac uu sheegay waxaan taasi tiiraanya leh oo runaantii qulubteeda gilgishay oo ruuxday la wadaagaynaa dhammaan dadka muslimiinta meelay joogaanba. geridii naxdinta lahayd ee adduunka gilgishay ee xalay ku timi Sheekh Alqaari Sheekh Axmed Cabdinaasir Yaasiin Warsame. markoowaad isaga ilaahay waxaan uga baryaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala inuu naxariisto. nin khayr iyo diin ku barbaaray oo lagu yaqaano oo markaa diinta ka shaqaynteeda iyo faafinteeda iyo qur-aanka iyo wanaagga ka dhex muuqday buu ahaa. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu noqdo toddobadii carshiga ilaahay maalinta qiyaama harsanayay oo dhowr meelood uu ka soo geli karo. xadiiska haddaan fiiriyo رجل معلق قلبه بالمساجد وكمد هاي وإمامك مساجدك شاب نشأ في عبادة الله وكمد هاي وليرد يراه بربارة الدين لا يكون بربارة بها خير فربنا من يسوت منا إلى أن الظن جاي وقاضي وراتيه الله رب سبحانه وتعالى ونحرسته مال الدون كانوا عن إلهي ونجيا نقبرنا تدك مسلمين تعدمانتو إن تعصيبا نقدرنا وقتصيرنا gaar ahaan familkii iyo qoyskii iyo dadkii uu qaraabadii uu ka dhintay. waxaan leenahay sabir iyo iimaan waasica. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. allahumma ajirna fi musiibatina wakhluf lana khayran minha. waxaan halkan tacsi tiiraanya leh uga diraynaa eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee geerida ku timi walaalkeen Sheekh Axmed Cabdinaasir. waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto, dembigiisa rabbi subxaanahu wa tacaala ha dhaafo, qabriga ilaahay ha u nuuriyo, beerbeeraha jannada ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala ha uga yeelo. waxaan si gaara ugu tacsiyeynayaa ehelkii
iyo familigii uu ka baxay annaga oo ka ima ahaan uu naga tirsanaana si gaar baan tacsi ugu dirayaa ugu dambeyn waxaa leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh murugo leh dareen walaalnimo leh uga dirayaa anigoo ku hadlaya dhammaan afkii ardaydii ka baxday maxadka alfurqaan walaalkayo sheekh axmed cabdinaasir yaasiin warsame oo xalay toole ku geeriyooday magaalada laasacaanood oo ahaa imaamkii weynaa masjidka alhuda waxaan alla weydiinayaa marxuumka in alla subxaanahu watacaala jannadii uu geeyo in alle dembigiisa uu dhaafo in alle subxaanahu watacaala siduu adduunyada noogu kulmiyey in alle jannada uu noogu kulmiyo waxaan tacsi u dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo culimmadii iyo ducaaddii uu ka geeriyooday alle subxaanahu watacaala dhammaanteen samir iyo iimaan allah inaga siiyo raxmaan raxiim inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun halkan waxaan tacsi uga dirayaa axmed cabdinaasir oo xalay ku geeriyooday magaalada laasacaanood sheekh axmed cabdinaasir imaamkii masjidka huda anigoo ku hadlaya afka macallimiinta magaalada laasacaanood waanu tacsi u diraynaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa naxariistii janno inuu ka waraabiyo qofka macallinka waa aabe waa murabbi ummad dhan iyo dad dhan wax soo baray waxaan ka codsanayaa dhammaan ardadii iyo dadkii wax soo baray axmed cabdinaasir ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariistee inay faatixada iyo ducada ay u soo maraan qabrigana ilaahay subxaanahu watacaala inuu u nuuriyo loo soo maro daliil ba inoo tahayo shalay waxba inoo dhigayey uu ina tujinayey maanta wuu inaga hooseeyaa qof kasta inuu geerida u diyaargaroobo iyo safarkaas lagu jiro iyo waddadaas ayaynu isfaraynaa oo ilaahay subxaanahu watacaala laga cabsado geeridu waa waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa ku tusaysa waayo ilaahay qofka dhintay kaama jecla ilaahay subxaanahu watacaala ehelkii iyo qaraabadii samir iyo iimaan allaha ka siiya iyo dhammaan ducaadda iyo ardadii ay wax isla soo barteen iyo mucallimiintii ay wax isla dhigi jireen iyo dhammaan guud ahaanba gobolkoo dhan عالمين إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى halkan waxaan tacsi uga diranaa walaalkeen sheekh axmed cabdinaasir yaasiin oo ku geeriyooday xalay 1dii bishii shacbaan 1442 oo ku beegan 14 bishii saddexaad 2021 dhammaan ehelkiisii iyo asxaabtiisii in alla subxaanahu watacaala uu sabir iyo iimaan uu ka siiyo waxa weeyaan alla subxaanahu watacaala uu hoygiisa jannatul firdaws lacala ka yeelayeen alla subxaanahu watacaala u weydiinana اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من كان منهم محسنا فزد في حسناته ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه في أعلى الجنة عررنه وإلهي حقي سو عررنه ما أنت فتن باجر لأن يرد بلايا لقصة فرفرة لقهودي يندهودي بقى يا قلبي جودي بقى لقصة الدولة يوم بالله ده هوس لقوه فرورة يا عادي عادت ولتي مركز لأن يرى وحاسي إذا قادن ميلي دين لتي جماعة قفكوا كهرة يا وحاس واحد شقي سطيب أقولك كل جلي marka waxaanu leenahay sida rasuulku kaleey sallallahu alayhi wasallam leeyahay todobada harka ilaahay harsanaya dhalinyarada kamida qof dhalinyaro diinta ilaahay ku barbaaray oo sidii ilaahay subhanahu wa ta'ala khaatimadiisa ku khatimay isagoo khayrka aan ka dhex bixina sidii u wada marka insha Allah taasna way isxusuusinayna kullu nafsin da'iqatul maut nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam waxa uu weynaha la yasmacu qura'an aalihim ataahu al malakan isagoo kabaha dadkii aasay shanqadhooda maqlaya ba malaa'iktu iimaanaysa qof marka malaa'iktu markay u timaadana waxay su'aalaysaa su'aalihii diintaadu waate ilaaha waa kuma nabigaagu waa kuma diintaadu waate taasay weydiinaysaa
marka qaar baa dadka ilaawayo garan waayay qofkii aan ahlul cibaado ahayn marka oo ahlul khayr ahayn waxa uu ilaaway marka waxaanu leenahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis kale khatar ah jiro yubcasu kullu cabdin calaa maa maata calayh qofku wuxuu ku dhintay baa lagu soo bixinay haddaad adigu xumaatada iyo balaayada ku dhex jiro cibaadadii ka tagay oo meelo kale wareegaalaysanay aad ku dhimato saasaa lagu soo bixinay marka isa soo bixintaas baa khatar ah qof walba waa halka khaatumada lagu baryo ilaahu khaatumada khayr noogu khatar marka waxaynu ilaahay ka baryaynaa ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto imaamka qaariga masjidul huda iyo magaalada laascaanood imaamkii masjidka ilaahay subxaanahu watacaala allah u naxariisto ilaahay subxaanahu watacaala eheladii iyo qaraabadii iyo innaga dadkaasoo dhammi waxay ugu yimaadeen naxdin iyo geeridaasoo ay ka naxsan yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa marka dhammaantoodba ilaahay sabir iyo iimaan allah ka siiyo allahuma ajirna fii masiibatina akhlufna khayran minhu mid kaloo ka khayr badan allah inoogu bedelo reerkiina gaar ahaan allahuma ajirhum fii masiibatihim akhlufhum khayran minhu way ku soo tabceenoo way soo barbaariyeenoo iyagaas sabab u ahaa inuu diinta ilaahay kusoo toosnaa marka iyagana waxaan leeyahay ilaahay meeshooda khayr ha ugu bedelo khayr allah ugu bedelo iyagana ilaahay mid ka khayr badan allah subxaanahu watacaala kuwa intaa hadhay allah baraka ha u geli ilaahay subxaanahu watacaala marka إن شاء الله تعالى أنا وذا الدعين غفل وقارك يا الدعاء أنا جاي على يدين إلهي سبحانه وتعالى إلهي كلمة ملائكته قصقوا إلهي أوافق شيء هذا لك ملائكته الله سبحانه وتعالى إلهي قبرك روضة من رياض الجنة إله جاية إلهي أجرك إننا جنا إله أجرك أنا جنا نقصان من أنا جنا صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى ولي كل نفس ذائقة الموت نفول وجلد ويرحم ووضعف كستاو مرة يغف وين qof caafimaad qabay iyo mid buka mid ku tala galay mid aan ku tala galin waa la maraya waa halka aynu arkayno ee qof walba ku aawadayo qofna aanu ka fayray marka taay loo diyaar garoobo oo maalinka qof walba ku tala galo ha dhawaato ha dheeraato in maalmaha ka mid ah la qabanayo idaa jaa ajalun falaa yastakhiruna saa'atan walaa yastaqdimuun marka ajushooda timaado saacad dib loo dhigi maayo saacada loo hormarin maayo dadku waxay dhisayaan aamaal iyo diidooyin dheer oo qofku ku talagelayo muddo dheer la noolaanayo wuxuu dhiso iyo wuxuu dhaqo iyo wuxuu barto iyo wuxuu dhalo iyo han aan xuduud lahayn oo qofku ku xisaabtamo sidoo weligii waarayo oo kale safarkaas la wada gelayaa aan qofna loo xadidin xilliga uu yahay laakiin geedka go'aanka ah qofku markuu musaafir yahay safar ku tala galo asaan ogeey saacada gaadiidku soo marayo ama hadee beed mahayo uu helayo safarka waa diyaar garooba sahaydiisa iyo agabkiisa iyo wuxuu ku safri lahaa buu diyaarsan waxa aad fahmi ka dadka tuulooyinka joogay aan aqoonin meelahan gaadiidka lahayn qofku xillu gaarigu soo maraya aan garanay haweenbar buu soo maraya suux buu soo maraya muduur buu soo maraya meelaha gaadiid ku yar yahay qofku wixiisu diyaarsanayo markii la gaariga taagan buu kan dacalka soo qabsada geeridu waa saas oo kale waa safar aad og tahay laakiin xilliga uu noqon doono aadan garanay marka xilli walba qofku inuu diyaar yahay waajibaadkii gutay muharramaadkii ka haray oo taacaadkii badiyay وخيركي أبرتمي وهذا بيد ما هيو إلهي حسوسي وآخر حسوسي بدل دون لكن غفوا هدو الله هي عيار هي هذا بيد ما هي ضيع هي ما لا يعني هي وقت اللمس هي واجب كي والله قبض فلو هي معاصي هي الله يحري هي هذا بيد من اللغو هي واحد أنا دبي آخر منك يكون مشغوله سيدا وبدأ ما نفط لك خبرية ده حسابه هرتالله والله ليال وعدي شيخ يري إلى كو أنفعنا أنا هنو أنفعه ولذلك وأد عيننا حين مرخات كنا هي ضمانتين قف إسلامين أنت تقاني ضمان وحين مرخات كيه قف إسلامه وأهل القرآن وأدب بعيد ما هيو ديل طبيعة لين وها إلهي مرخات المسلمين هو أقبله إلهي وحنا كنا قلتك الله واسعي الباب شدد الله غفر ذنبي سي الله ضافه يكي والد كيبه إلهي وحنا كبرنا مرتسوق وعن الله صي إلهي وادو كوسو هويد إلهي وادون كاك إلهي يوم مرتسوق
إله عذاب القبر كبد بالي إله عذاب النار كبد بالي إله يحساب وقبله إله يحساب وقبله إله كل الإسلام كمان تسدي ما كسر إله كل إله سوري ما كسر عون خطبة الله الصيب إنه عون خطبة الله ينصر نبي ينكرك الله ضعف